doorashadii madaxtooyadu way dhacday xisbiyadii taladii dadka maanta adiga haya xisbiyadii waxay ka cawdeen doorashadii kala qaybsanaanta doorashada laftigeedii la taagay jabhad baa ku samaysantay dalka wax badan baa dalkii isbedelay wax badan baa dalkii isbedelay magaalada hargeysa biyala maayarkii iyo shacabkii oo madaxa iskula jiraan jabhadaha hareerihii dalka doonayay inay waxay doonaan ka yeelaan doorashadii golaha deegaanka inay ugu dhacayso wadiga adigu waa hadda soo tibaaxaya dalkaa lagu doorto xageeba dalku wadaa hor dalka waxaan wadaa horumar nabad iyo meel wacan gaadho aroor wal oo joogtabana maanta iyo berri iyo shalaybana mashaakil ma la xalinayo mashaakilka maanta yaalaana waa kuwii dowladda loo dhistay waa kuwaynu waynu xallaan xaq leenahay adduunyada loo leeyahay mashkilad kama dhamaanayso marka mashkilada kan aad sheegtay qaar waaweyn laga dida maaha kulama arko dalka waxaynu wadnaa inay mashaakilkaasina xalilmaan inteena badanna gacmaha is qabsato horumarna aynu gaadhno talabooyinkeedina waanu haynaa beelati aniga qaranka oo dhan baa horyaallo intaan ka qabanayana maalulba talaabadan qaado waa la arkaya adna waad arkaysaa markaad ka dhafto ficiltiga bulshada aad markasta warbaahinta isugu yeedho si ay ku weydiiyaan su-aalaha iyo xaaladda dalkaas uu marayo halka waxaa loogu qaybiyey deeqihii ay wasaaradda waxbarashadu bixisay u qaybisay waxaa loogu qaybiyey oo kale shirbeeladyada dastuurka waxa uu ka qabo laakiin lambar 20 xeerka wuxuu sheegayaa in xisbiyadu ay ka caban karaan komishinka doorashooyinka markay ka cawdaan madaxweynaha iyo xisbiyadu waxay xaq u leeyihiin in guddi loo saaro marka guddiga loo saaro guddigaasa kala bixi keen waa suu xeerku sheegay xeerkaasi lambar 20 looma idin qaybin laakiinse maxaad kaga jawaabaysaa qodobkaa dastuurka ka qabayso waaba kuu sheegay anaaba kuu sheegay commissioner hebel ayaanu dacwad oo qabnaa waxaa loo saarayaa guddida qofkaa laga soo cawday iminka waxaa laga cabanaya waa natiijadii doorashada waa go-aan uu leeyahay commissionku go-aanka anu kama garan kara dee commissionkaa go-aanka xisbiga wadani 3 xal buu xaq lahaa maalintii doorashada u dhawaaqayay inuu maxkamadda geeyo hadduu turay dalka inuu saa kaga sabraabe waxa weeye doorashadii waan aqbalay laakiin commissionkii maan aqbalin wax soo saaray anu gartaa ma galaayay dee iyagii maxkamadda ka dhaxaysa commissionkana go-aankiisa ma bedeli karaanu haddaan jecelahay haddaan cebahay waan ixtiraamaya markaa garta ka dhaxaysa commissionka iyo xisbiga wadani maxkamadda ay u taala anagu labadooda intii aan isu jidi karayn la shiray dhinac walba dee go-aankii baa yaalla natiijadii wadanna si cad buu u diidan yahay go-aankii uu soo saaray commissionku ee doorashada ku saabsanay hala shaqeeyay hadduu ogolyahay laba su'aal baan weydiinaya mid waa xagga doorashada ku saabsan tahay waxaad sheegtay in doorashadii iyo dhaqaalo beriyahan waxay aada uga caawinayaan dhaqaalo daro inuu istaagay kharashaadkii aqaayee dadkii gaari jiray suuqa socon jiray haysna weydiisayeen naxariisan oo handaraab anaa ku oran markaa maxaa la handaraabay maxaa sababay inuu kharash istaago ma dhaqaale la-aan baa jirtaan mise cusuma kaa jirtaan qodobka hore mid baa doonaya inaynu isla fahmno haddaa saxaafadtiin iyo dadkaba horta xisbiyadu isma haystaan xisbiyadu isma haystaan imika doodan deldelane waxa weeye waa wadani iyo commissionka xisbiga wadani wax waloo kale waan ka wada shaqeyna waan isla ogola xisbiga cidna waan isla ogola wax markaa arrintaa ah xisbiyada haysta meesha ka saar ما حلوا واي تقولش شغله وكليه برلمانكو ما دحق لك أرنتها توس ما قلك قلت ما قلك تو وانك ما قلك وارن شرعي وضني يكوش كارثة رحت الله أما أنا محكمتك تا أما أنا يقول يو كود هالشيء أنا وكما قصب كرو وضني أقرو كمش كنا ما أورن كرو أقرو لكن وحي وانا وحي استاكتي حقال بان هذا natiijadii baa xumayseen iyo maanaan xumayn ta halkaasaa dhigay ta labada ucid waa mawduuc kale eeg labaad isku qalda adigii saxaabigaa arool bor ku raadin xogaalkaa baa laba isdhexgelinayay
proposal ka ucid in laba la kordhiyo xaq bay u leeyihin waanu ixtiraamina iyo xisbi waliba annagoo xisbiyada chance baan arsiiyey waxaanu aynu soo sheegna doorashadii hore maxaa ka qaldamay maxaynu hagaajinaa xaggaynu wax ka toosinaa xisbiga wadani wuu diiday inuu arrintaa galo full stop isagoo halkaasuu dhigay waa ra'yigiisu alaalay ucid way soo diyaarisay waa march way keeneen may iyo meelahaasay keeneen ra'yigoodii waxay ka qabaan waxa la toosinaya waxa qaldan ururada bulshadu way keeneen sharci wixii caqli ahayd dad arrintaa xiiseynaya wuu keenay danaynayay commissionkaa la geeyey akaadamiyada qolo ka timid baa soo martay waa la isu geegeeyey xisbiga kulmiyana uu ka soo shaqeeyey ra'yigiisii waa la ii keenay golaha wasiiradaan geeyey golaha wasiirada waxaan u gelinayaa in sharci ahaanu loo eego inuu waxaan laga soo cado sharciga waafsiyey xisbiga wuxuu soo jeeday ma diidi karo laakiin haddii sharciga waddada sharciga haddii wax ku jiraan waa loo sheegaya wararkaa sharciga waxaasaa ka ah iyadoo isku dhan baanu gudbin xisbiga waddan laba goor bu chance leeyahy markii uu ra'yigiisaa qoray soo gudbinayay inuu kusoo daro laba hal kordhiyo haddii ay dhaaftay oo imika xusuustayna inuu baarlamaanka u geeyo sharciga waa qabiy qoraale ilan baarlamaankaa kordhin kara ama diidi karee ayuu xaq u leeyahy laakiin anigu ma faragelin kara dee hawsha ka dhaxaysa u cid soo jeedinteedii baarlamaanka kordhi adigu laba awooddaa baarlamaanka ima siin marka hore haddii awooddaa laysin lahay aad baa dee way wanaagsanaan lahayd waayo isaga doonaan commissionka ayaa waa laga xakameeyey sharciga baarlamaanka laga xakameeyey iyaguna way ogyihiin saaxiibaday marka taasina waa saasoo waa fikrad ay leedahay waddani ucid with respect qoraalkoodii soo jeedintahay baarlamaanka ku yaallaa weli looma codan ha u geeyaan labadan taana kasaan ku eeday ta dambe handaraab horta intuu aqalku banaanaan lahaa iyo inuu handaraab shal xidho inuu xidhaa la qaatay ila haddii kale wax bay soo gelayaan kii aqalkiina haddii handaraab kuun ahaado la furi waayo dee isna sigaa ku dhacayso uu balowshoobayaa in la furo oo la hagaajiyo oo dadku reer galan waa loo baahanya haddaba handaraabka xidho waxbaa ka jira waa iska xidhxidha waxe waxa moo furaba anigu arrin toddobada furay idinku soo shaqo tegay 7:30 buu idin furay ilaa habeenkiina saacadda buu furay laakiin waxa yaa soo galaya ka baxaya maxaa yaa shaqaynaya yaa utaaray waayo waxaynu u baahnaa waqti yar baynu haysanaa hawlo badan baa inoo yaalla at least production-keeda waxaan soo rabaa yaraada laakiin inaanu shaqada barano oo qof walba shaqada wuxuu doonayo iyo halka uu shaqo qanaa gaabinaysa masalan magacaada hodheero jamhuuriyaha adiga iyo harwanaagii baa yimid Britain waxaan doonay madaxweynaha noo shiro xaq baa u leeyahay muddo dheer baa ku soo jirteen oo way timaadeen sayalkii horta waxaad doonaysaa 15 daqiiqo inaan kafta ku lumino iyo iska war iyo taariikhdeena hore 15 waxaad doonaysaa inaad aragto gabay iyo faan iyo reere iyo waxay ahaayeen aad sheegto 30 minutes laba saacadood ayuu qofkii qaadanay qofna maalintii hadduu bato dhowr tan saacadood shaqayn kara hadduu dadaalo sanadku waa 360 maalmood Soomaaliya waa 4 milyan haafima yimaado waa dumarkii carruurtii dhalinyarada iyo inta talada tumisay timaada waxa soo qaadan 2 milyan tahay maalintii imsa qaabili kara haddaa dhawaad uu qaabilay awan taaba raaco kula waxaad 15 minutes waxa ay sheeg ma qaad karo mid uu ka guuray oo telefoonkan iyo dhaqankan imka maxaa la ahaayeen digital ka dhaafiyay waraaqii la soo qori jiray waxa ka soo jawaab xasan ka rabaa waa la diiday ama telefoon buu doonay ku hadlo oo arrin serious kaaga dhameeyo Trump ku hadlo ii kaadi ama hadduu ku yimaado inaad de respect de saacadii shaah soo dhigto dabeetana si rag dal leeshari iska raaxaysan aad u hadashaa marka time-kii dadku yiri ballantina waa soo jooga waa dheertay xaqna wuu leeyahay qof kasta inuu arkooda shir haddii markaa dadka ay dareemeen in de wax la yiraahdo kii horta dadaal u marsan oo shaqeeya haddana kuna saacada shaqada iyo saacadii loo baahay furay laakiin de meel balaqan dabaysha iyo jiirka iyo waxa way soo galayeen dhaqalu de baada hadduu xaq u leeyahay mushaahar xaq lumay deyn inta waa laga hadla de awood oo dala mariya tisoorka wado dhigay iyo xeer shaqalaha de wadada haddii la maro waa ninka wadadii lagu diiday hay sheego ninka xaq u leeyahay aanu diiday hay sheegtay labaad tobankii bilood xilka haysay inta badan waxa lagu dhaliyaa inaan waxaan ka ahayn isbedel hoose inaan wax walba mid waa runtaa
حناق مركز حيتوس جيت سأصل عليه أنا هذا حناقة أديك أصير حناقة إيه صل عليه وقفتوا الناس وجهوا صادق وحقول بواد تأيد يد حركة سويسة حتى هذا يوقف شيء كريه حركة قارو يناس قبسنا طب هذا يسقبسنا إلا مرمان وده جي إسلام تقولي وتشوفه أدي أبا هذا أدي أولاد هذا حلقة من الذين أو حلم مسمى تقول أقول يهرت هذا كودينك ساش بيتو ودي هذا كرب ما وين كفتوا هنا قبصة اختلافك وقصاونا صلى عليه هذا حلقة ما هي كلها ودي إنه بيودي سواشي هي الحلقة سوي سباتي حتى أنا سكبا قاتي هذا أنا كوجو أنا عاد كرجع قاعد دبرت أنا سكبا لابنا مركا حلقة مضاد كيس قبصة وذا قارة مسقف كولا قارة dadkii isqabsaday ayaa konsens ku wada gaaray anuu xaggayga diyaar baan ka ahay ciddii aan shaysanay iyana taas soo xalka iyana hayla gaadho haddaad leedahay adaa madaxweyne iska tallaabsana taa hore lagu soo mayeelo keligii nin tala ma gaaro ma jirsiyo dadka qofka iska horjeedaan talada lama jirsiyo oo la gogol badaya taas waa mid tii labaad wax badan maad qaban waa runtaa 5 sano ay doortay توم بلود بنشوفه proportionate work وقت جاي هري أنت قبضت بلانتايدي أنت هاو كفر ما قبضت خديجي أدو مركز ضغطي لا بس إنه هو يداو كويس حتى واحد ركسامتش ناس كم تشقي ساح كلمة قلبي لا بس إنه تقول سحار كذا كابينس كور كذا مريس كل كات كذول كسوكري إلى كمركز قاتل شو رزق قدرني كابي حروري إيه قالتها تبل proportionate هاو شيء تلقاري صارت كسوء أجو حتى توكي بلوز كفدي وارد هذا ده أنا وأنا قرحه haddaynu tobankii wax qabanayna dee aanu realitiga islaagno dhal waxa inoo taala baahi badan oo inuu u baahannahay inaynu wada qabanno aynu dhammaanteen ka wada dadaalo oo inaan isku turturin aniga waxa laga rabaa leadership iyo vision iyo waxaan qabsan adoo waxa laga rabaa talent oo dhinac kale igala qabato laakiin cadha haddaad intaad project aad iska sacraysan ba imika aad sii jeedsatay oo weliba aad wariye tahay inaan feelingkaaga dareema ahayn labadana hadinaan boodo kula war maxaad saa ilaadaas laakiin waan ku baraynaa sida loo xaloo iskaba dhaaf meel lagu dhawaaqay qof aan waxba ku lahayn oo caadi u dili karo kow kaga siiya maalin walba waxa la soo qabtaa qof dilay oo gardarro ku dilay oo dil lagu xukumo qofka bini aadmi qalad uu gali kara gacan iyo afba qofka sharciga ku gudba ee ka xad gudba wada aynu waxa leeyahay sooysan qofkii xal dambi gala waxaanu soo hay'ada sharci oo inoo soo qabta maxkamad mariya wixii uu yiri masax waa maqaalad ba hawshaasina xaq u leh laakiin tii hay oran halayaano muxuu dambi u dhacay dalka xagga fudhacay tii hay oran marka waxa weey nin baa dhawaaqay dhammaanteen waxa loo arkaa inuu sharci ku gafay ninkii dadkii waa la soo qabtay ay tii qof qura maqalinta kale waa la soo qabtay xaq bay u leeyihiin inay lawyer qaataan maxkamadda maraan oo waxay ku hadeen inuu sharciga waafaqsanay anu ma oranayo waa dambiilayaan waa la soo qabto waa eedaysanayaan yaa dambi lagu heli mise lagu heli maayo waxa la hay'adaha sharci marka aniga waxaad ugu canaanaysaa haygo oran muxuu dambigaas u dhacay oo ninkaas u dhawaaq war talaabada sharciga hay'adaha habooreed ma la qabto nabad dib la sharciga ma la fuliyay weydii ma garatay adigu iska war berigiisa warkaad ka qaadina dee waa kiiskii beriga dawladda ugu dirsan waan garanayaa bismillah madaxweyne waxaan chance ma nasiisay weydiinaya laba su'aalood labada su'aal waxay waxaan walaha wasiirada xukuumadda wasiirada qootadii haweenka aad baa loo soo dhaweeyey walaha loo dhigay weli may meel marin waqtigeeda iyo markii meel marko waa la sugayay waxaad adigu chance u leedahay magacaabinta haddaad magacaabayso xukuumadda ka tirsananaysa ama hay'adaha dowladda arrintaa aad baa lagu dhalinaya haweenka doorkooda inaan fiirin iyadoo tusaale aan usoo qaadan karno 9 qof qaada bacdi magacooday oo qoftu marayaan ku jirto halka abay axmed lagu barbar dhigayaa uu turan haweena magacaabay 20 wasiir oo magacaabay arrintaas maxaa caqabada adiga u taagan haweenka door mudan siisay inta qoftadaas meel marayso taas waa mid su-aasheeda labaad waxa weeye 2009 guddigii doorashooyinka waqtigaa jiray kalsooni darro ayay ka muujiyeen xisbiyadii waqtigaa jiray qaarkood sida kulmiyooda oo kamid ahay iyo waa la kala diro hal bay socodsiin adigu maxaad ugu dhagan tahay guddiga haddii kalsooni darro ay ka muujiso in sidii taa laga yahay baa laga yahay dambaan ku soo horeysiyo guddida doorashada cabashadoodii qofka ahayd waxa ku qancay madaxweyne markaa joogay iyo golihii baarlamaanka tan imika natiijadii la isku haysto dee kuma qanacsan anigu madaxweynaha
micnu maaha anaa lay doorto la ii sameeyey laakiin waxa weeye markii ay arrintaas taagnayd ee maxkamaddu baa lala marin caalamkana waxaa loo sheegay inaynu ka tanaasulay goobjoogayaashii iyo dadkiina waxay isla ogolaadeen inay sax ahayd dalka fidma dib ugu celin maayo doorashad sax ma ahayn aqbali maayo taasi waa taa tan hablaha horta waa ka garaabaya ilaana habluhu xukuumaddayda iyo maamulka aqbalay ay aada ugu yar yihiin gartaa la qaadi maayo waan ka garaabaya abbaay axmed hadyaag dhigtay iyo kagama oo ruwaadna joogana duruufahooda iyo norway iyo sweden iyo dadkaa iminka aada dumarka u dheeranaya dee iyagu 100 sano ka hor midna dumarka xaqba ubay ogoleen inagu xaq baynu ogolaa dhaxal baynu ogolaa dhul baynu ogolaa midkoodna u ogoleen maraykanku 1930 buu ogolaa iyo ingiriiska iyo 1913 marka ururada dalalku waxay leeyihiin cid waliba dhaqan iyo diin iyo caadaad iyo xarig ka badan baa jira oo aynu la gaabinayno in dumarkeenu qaybtooda kula hadaan dalka hadday xeerdijin tahay iyo hadday shaqaale tahay wanu ixtiraamno waa dhan laakiin adiga gaimka u doodaya dhaho aniga igu canaanaya inteenaasoo midkana naga dhanbaa dumarku ayna soo garab galaan markii dantaan ku hadal lugtan wajida haddana laakiin eeda dee ana meesha waa laygu tuuraayo waa layga canaanaya gartaasi wayna qabataa ragoo dhan baana qaba anigoo qori ma qabee hablaha haddaynu daacad wanaynu soo hirgelino adigaasaa gabadha tartamaysa hoosta ka jiidaya ta kaala shaqaysa journalistkana xuquuqdeeda ogolayn oo intaa jiqli ku riixaysa marka anna idinku oday baan hay'adda waa qaba hablaha gartaa way nagu leeyihiin ragguna waa wada qaba su-aashan ku weydiinaya waxay tahay somaliland waa waddan curdina waanu ka wada dhereysanayn dhammaanteen inta badan arrinta ugu inoogu weyn ee ugu muhiimsanayn inta badan xoogga saarjira waa arrinta cusraqaalinta si dalkan aqoonsi wada siyaasadda arrimaha dibaddan ka weydiinaya inta shir baa lagu qabtay shirkaas waxa uu qiimeynayay siyaasadda arrimaha dibadda wixii ka soo baxay dadku ama yani xaqiiqada marka laga hadlayo ma ahayn wixii laga filayay siyaasadda arrimaha dibadda ee somaliland halkay ku socotaa adiga dalka madaxweynaha tukoon baa joogta isbeddel baa lagaa filayay waxaa ku gadaaban caqabado fara badan oo gobolka iyo caalamkaba ka socda ma waxaad doonaysaa waa halka handaraabka siyaasaddu waxay ku socotaa in dalka lagu soo handaraabo adigoo madaxweyne handaraabkeedii lagu dhalin taas waa su-aal arrinta kale waxay tahay doorashooyinka 13 sano ee golaha wakiilada fadhiyaan golaha deegaanka waqtiga waxaa dhamaaday waxaad xalkii ku riixday waxay u dabarayeen doorashooyinku xisbiga wadanina waxa uu sheegay haddaan la aqrinayn oo uu gudoomiyadiisu sheegay in xulmiye doorashooyinku handaraabay laakiin ay ogol yihiin wax kasta oo doorasho lagu qaban karayo adigu xalkii halkaad ku wadaa wadani saasaan ka haynaa adigana waxaan ka haynaa wadani ku dabaaran yahay miyaanay ahayn arrintu in ay ka dhigan tahay in aad leedahay meel aan rabay roomaygu helay ama meel aan rabay roomaygu helayo oo aanad ka galgalinayn doorashooyinku waad mahadsantahay ta hore ee aad tiri shirkii wixii ka soo baxay wixii laga filayay muu ahayn ayay dadku leeyihin horta maan maqal meel shicbi ku doortaan salaabaan oo idhahdeen isaga naga wakiilo ummadoo dhan aad u hadasho xaqada waxaa tahay aniga haddaan hebel ahay wixii ka soo baxay wax ka weyn baan ka filayay oo marka qoladii aad hadlaysa dee dadka codkooda aanad lahayn ha qaadan wixii soo baxayna cid u dhaliisha iyo cid bugta waa la helaa haddaad dhaliishayna waa fikradaada waa lagu ixtiraamaya siyaasadeenna arrimaha dibadda waxay u socotaa kow inuu dalkan helo ictiraaf oo qaramada kamid a noqdo dagaalkeedana waa ku jira iyo dadaalkeeda ninkii noo dhaliirana waxaan u qaadanayaa usha faraska waxaa loogu dhuftaa ha dheereeyo waanad ku mahadsantahay adiga kuwa kalaba haddii aad haysa fikradda tu ka wanaagsan oo tallaabo ana saa doontaa waad soo gudbin kartaa miidiyahaagaad ku qori kartaa wasiirkaad u geyn kartaa dowlad waa la qaban karaa wixii aanu wax ku rarsanayna waynu u baahana waayo taladu ciddii ku jirta alla og marka taana waa la soo dhaweynaya laakiin annaga waxaan rumaysannahay oonu hubnaa in lala dadaalayo waddadeediina ay hayso loona saaxiibo badsanayo dadaalkeedana waad arki halkay ka socoto dadaal joognay taa intaasaan ku dhaafayaa ta dambe ee ahaydeen doorashada wadana sidaynu wadana soo yiri dee adigu matid record waliba intuu duuba uu gelinaya cajaadina qof binaad baata ninba waxba ku doodo doodiisu uu sheegay anu waan kuu sameeyey labadaba dhegeyso soo qaad cidda ee dale ka soo dhex saartay go-aankaada leh anu ka odhan maayo wadana khaldan iyo anaa saxa iyo midna labada arrin yaalla labada ayaan ku tusaayay
aduu go-aankaaga halkay ka caddiyoonta sheeg anigu se meel roobi weriyaayey oo muxuu roobi weriyaa dee iminka doorashana ma dhawo ma taagna doorashana anaaboo jeceloo baarlamaankaygoo markii hore in badnaana waabanu culowno weerar baan ku qaaday oo dee xisbiyada wax bareeya doorasho baarlama ka baxa arun baaba layga haya bal markaa adugu xaggan iyo xaggan ha u tuurina labadii ra'yiba qaado oo soo saarka qaldan waa mahadsantihin intaasaan ku xidhay waa yar xidhay